bal waxaad iiga warantaa goorma ayaad fanka ku biirtay horta marka horeyso Yuusuf aad baad mahadsan tahay anigoo dadweynahaygana aad iyo aad u salaamaya jecel inay iga qaabilaan salaanta quruxda badan leh dadweynaha aan fanaanada u ahay fanka waxaan ku biiray anoo taadi u noqonaya 1969 baan ku biiray fanka ma jiraan wax markaasi kugu kulifay inaad heesto xilligaasi waxa way jiraan waxa jiray dalka iyagu xamaasad baa ka socotay halgankii weynaa cadawga iskaga dhicinaynay fadligiisa aan u galay marka koox la yiraahdo gacan macaan oo abwaano waaweyn leh oo fanaaniin waaweyn leh alla weyne iyaan iswada garab qabsanay sidaasan de iskaga ceelicinay cadawga marka fanaanintii xilligaasi aad la bilowday fanka wax ma ka xasuusta magacyadoodii ها وان حسوسنا سيدنا حسوسني فنانين أبوانادو حسن علمي إبراهيم قرلي آدم فارح الله ونحرسته دعر قورياره دي أبوانادو يبديهن فنانين تنو يبديهن عن وحقوة السمينيني فدون دعالي فادماء أحمد حاوق القاد إله بيتيسو نجد هي نظيفه روضة أحمد حبيب البلاف أنا قولي مع جامعة وان بدنين ده سعيد حبرقود عبد النور اللالي حق الرقنة محمد آدن عمر آدن فؤاد الكعسة دت وان بدنين آدن وضن بعض ما هالسنتين نوعا سيدين وذوقين xilliga aad asaastay fanka 1969 dhibaato weyn ayaa had iyo jeer gabadha fanka ku soo biirtaa iyadoo fanka la aqoonin isla markaana dhibaatooyin ay ka soo gaari jireen ma jiraan adiga wax dhibaato ka soo gaaray markii aad fanka ku biirtay horta dadkeenii hore waxa weeyaan way necab yihiin fanka waqti fanka aad baa loo nacbaa laakiin dadkan imika waxba fanka aad buu jecelin dhalinyarteen ka soo qaday dhibaato way naga soo haysatay oo wallahi gabadha fanka ku jirtay nin walba waxba ku tilmaamay ma garan laakiin imika se fanaaniinta yaryar imika naga dambays nasiibkooga wanaagsan aad baa la soo dhaweeyay aad baad u mahadsantahay marka fanaanba sida qofku marka fanka la istaaray ama la bilaabayo fanaanba fanaan ayuu egta sida imika ubadka yar la soo koray fanaanintii ay hadii ay heesaan loo yiraahdo wariya ama gabadha lagu yiraahdo nimci codkii nimco kala aad leedahay waxay helaan kalsooni ay ku sii wadaan fanka marka adiga ma jiraan fanaaniinad xilligaasi ka helaysay oo la lahaa nimco ay adna hiblo kala tahay mise hadun ba ugu horeeyay haweenka xilligaas maya wallahi waa la igu horeeyay aniga xawgal qaad iga horeysay inaan amnac qowdar leedahay iga horeysay hablo badan baa iga horeeyay fanka caasha cawaale allah u naxariiste hablo badan baa fanka iga horeeyay oo waliba igu dhiirigeliyay fan walba hadii jeer ama asxaabta ama fanaaniinta laftigooda way gacan ka qof walba markuu doonayo adigu aad u mahadsan hadana aan sii wado su'aalahaygii bal waxa aad sidaad ii sheegtay tiri waxaan ku bilaabay heesihii gobonimo doonka waana fursad aad iyo aad u qaaliya dadkuna marka ay doonayaan in ay dhageystaan aan xagga loo aaba yeelayno loo eegayna la eegayo qiirada sababtoo ah qofka fanaankii wuxuu aad iyo aad uga qayb qaataa dagaalada waana in maartay ciidan badan u baahnaa ayay niyadii iyo codkii dadkii xamaasad gelisay meeshii dagaal hor la galaan oo iska dhiciyaan oo dadkii wax loo sheega horay Soomaalidu oran jirtay wax ku sheegana wax yar baad aragtaa wax ku siiyana wax badan baad aragtaa marka kullee adigu kaalin weyn baad ugu jirtay oo aad lagu soo dhaweeyay marka bal heesahaagii gobonimo doonka teba ad noo soo qabanaysaa ugu horeysay adiga oo waliba wallahi ugu horeyn heesii bartankii weeyaan waxa weeyaan geesiga jire gobanimada jecel ya kow gargaare kumaysigu wate
gowracay walaalkii gabadhayow sidee baa loo kala gartaa gabadhayow sidee baa loo kala gartaa marka inan bay iga rogaysa kuwa guusha necebe iyo inan toorinayso iga daba rogaysa wogtahay waxaa lagu gartaa goobaha dagaalkiiyo geedkaad ku aragtaa gumuuciyo rasaastiyo gantaalaha shisheeyiyo way dhiceshay geeridu ka kale gadka xuma galabsada geshiyaysaniyo yana nuudhanaya heesku hees dheer hees lasoo koobi karay aad iyo aad buu macay hodo codkaas waxaan filayaa inta fadhidaana inaanay fadhigaba ka kacayn inta taagana ay taagnaanayaan ka soo socda albaabka garaacayaana wallaad buu ku jabinayo balse markay codadka maqlaan marka waxaan jecelahay bal kooxda laftigeedu kula jiibinaysa aniga magacyadooda xaadirin doona bal inaan dadka sawirkooda tuso horta kooxdu waa taas dadka oo dhamina waxaan filayaa inaan ahayn mid loo kala hadhayo oo meel walba la isaga yeeranayo ilaa hadda sidaanu maqlaynana goobo badan oo ka tirsan magaalada Ottawa iyo magaalooyin kale ay ka mid yihiin Montreal, Toronto iyo hareeraheeduba ay isaga yeeranayaan asxaabtii oo leeyihiin fanaanadii weyneed baa timid iyo kooxdeedii dadkuna ay rabaan inay goobta isku wada arkaan waxaan leenahay haddii ilaahay ka dhigo iyo waxaan leenahay kuraasta la idinka buuxinin anagoo idiin sheegi doona waqtiga la dhigayo iyo goobta la dhigayo iyo qiimuhuba intuu yahay su'aalahaygii baan kusii dhex jiraa wali waxaan kaloo kugu darayaa bal heesahaagii kale ee aad maanta qaar inaad noo soo qabato iyaga laftigooda heesahaygu way badan yihiin meheya maan kusoo qabtaa alla ila waa taan jeclaa waa midaan jeclaa jabeerka lolay kii bogaygiyo beerka lulay bila maaragoo waan bukaa baadi doonkiisa aan ahaa mana badheedhe waan baqaa haya adoy hunoya alla hobalin hobalowa wah afkaaga caaniya malaba lagu qabay waan kula nahay waad mahadsantahay aniga laftigaygu bal ka yara dalbanaya erayo run ahaantii heesaad qaadi jirtay ku jiray heestaasoo ahayd naatimo yaray tuuraadhi la joog isla markaana markaan dareemo hadda aan siiba xasuusto dhaqankeeni oon sawiranayay gabadh Soomaaliyeed oo buurta dusheeda ama tuur yarba la joogta ariyo maydhax ilaga ku hayso maaragtay tidacaysa bal heestaas erayadeedii bal maad inoogu yara intii iyadana horta waa isla heeskan uu moogtahay isla heeskan baa la yiraahdaa laakiin mudhaha dee kala duwan ninka wuxuu ku oranayaa timo yaray tuuraadhi la joog ani tagaagalay amaan buu oranayaa isagu inantaa markaa waxay odhanaysaa hooyadii buuxbay tidhaa anu bulaala caddaan idhaa waxa bulaaluhu koray ma korihii ma la korinaya haya adoy hunoya alla hobalin hobalowa waa isla heeskiino aad iyo aad mudhaha yara kala duduwan aad iyo aad u macaantahay bal waxaad kaloo wax iga sheegtaa iyagana heesahaagii kugu dambeeyey kuwii igu dambeeyey adduunyadan rubuuco hadhay intadii badnayd la rogay rugiyo raasiyo degeen dantada ka reebane ratiga loo qalay sunta markaan raadicaysidhi talaad tidhi hay rogrogin runbaa cari sheegi tidhi samaa yidhi hay rajayn inkastoo aan aad iyo aad uga xumay music laan inagu tiraaheen aan fadhi una wax ku yar
aan ku yar sheekaysana tiraaheen waxaan ka jeclaa maca muusigii maca wixii oo dhan ma jeclaa anagu maanta aad waxaan u doorbidayna maadaama muusigii noo dambeeyo dadkuna ay iman doonaan dadweynaha Soomaaliya hadii Ilaahay ka dhigo inaan bal codadkaaga dhawaaqaaga inaan maartay fanaan walba Ilaahay hibo cod buu siiyay bal codkaagii oo luuqa sidaan raadiga ka maqlay maalin Faadimo ku wareysanaysay taasna aad u jeclaanay inaan markaa doorbidno ilaa bal muusigu hay naga dambeeyo saasan jeclaanay bal hadaba su'aasha igu dambaysa aan ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa bal waxaad bulshada Soomaaliyeed u soo jeedinayso aniga oo waxooga yarna runtii kugu yara dardaraya adiga iyo kooxdaadaba hadhow adii heesi doontaan si bal showga bulshadu otowadiyaad sheegaysaa bulshada otowada degan kugu faraxsan bulshada otowada degan waxaan ugu talagalay wax qurux badan baan ugu talagalay iyagoo qoslaya inay soo baxaan iyagoo qoslaya inay galaan wax badan baan ugu talagalay heeskii hordhici baan ugu talagalay hobalada gayigaha saawigeheesaanu nahay markaasay nimadu naga rogayaan idinkuna dadweynaha nala hayeenoo hagarbaxe waan idin haweyne waan idin haweyne hela hooyo hanti hambal iyo salan naga hela haybadi iyo sharafaniyaha wadnaha kalgacayl halgalay aad iyo aad baad u mahadsantahay nimco aad iyo aad baad u mahadsantahay bal heesaheedii baan mid idin maqashinaynaa iyadii iyo kooxdeediiba iyagoo wada heesaya oo aan idin gelinayna barnaamijkan aadna idin uga bogan doontaan inta dambe waxaan idinku maqashinayaa qaybaha dambe ee xayeysiiska waana mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay adiga kooxdaada